الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، الله سبحانه وتعالى مهضر ونسكله waxaan doonayaa hal qodob inaan walaalaha la wadaago muslimiinta ah Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. runtii marar far badan waxaan arkay meelo cilaajiye ah oo dadka lagu daweynayo. waxaynu wada ogsoonahay in la isdaweeyo oo qur'aan la isku akhriyo amba ha noqoto meel goob loogu talagalay cilaaj soo naqaano waxa weeyaan cilaajyada ku naqaano oo qofka in qur'aan waxa weeyaan lagu akhriyo amba dhir iyo wax la siiyo ha noqoto. dabcan waa arrimo waxa weeyaan shariicada islaamka waafaqsan in la isdaweeyo. qofka jin ha galo amba sixir ha loo waxa weeyaan sixir qof waxa weeyaan loo dhigay intaba waxaynu ogsoonahay in ay banaan tahay in la iska daweeyo, la iskana daweeyo sifada sharciga ee waxa weeyaan shariicada islaamka ku soo aroortay. waxaad garanaysaa nabiyullaahi maxamed calayhi afdal wa tamu tasliima markii ninkii yahuudiga oo sirxay in ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan waxyi ku soo dejiyo oo in waxyi ilaahay ku soo dejiyay lagu yiri nabi maxamed muawadaadka waxa weeyaan isku daweey. arrintaas markaa waa arrin sharciya oo banaan. arrintan doonaya laakiin aan u socdo inaan tilmaamaa waxa ay tahay khaladaad fara badan, dad fara badan wax ilaajinaya khaladaadka ay ku dhacaan. khaladkaas wuxuu yahay walaalayaal in qofkii sheekh sheeganayay sheekh inuu yahay wax ilaajinayay cilaajka haystay inuu waxa weeyaan TV-yada qaar inuu waxa weeyaan dalbado amaba isaga laftigiisu inuu kamarad soo iibsado dabeetana dumarkii uu quraanka ku akhriyay inuu ka duubo intuu meel isugu keeno qol ah ama daarad inuu biyo ku shushubo kadibna mikrofoonka inuu waxa weeyaan quraan ku akhriyo. asal ahaan qofka quraanka waa inuu jidhkiisa gaaro qofka lagu tufo, laakiin qofkii halka iska fadhiya inaad waxa weeyaan mikrofoon qabsato oo quraan ka akhrido waxa weeyaan farqi uma dhaxeeyo inay quraan iska dhigaysto gurigeeda iska joogto. marka khaladka kale ee si weyn aadka u foosho xun aadka u liita ee aan arkay waxa uu yahay in dumarkii kamarad laga duubo. arrintaana markhaatigeedu meel fog ba ka raadin meysaan YouTube-ka ay galeysaan. nin kastoo maanta cilaaj furtay oo ka dhigtay waxa weeyaan cilaajkiisa iyo dumarka uu daweynayo shay waxa weey aad u raqiisa oo ka dhigo xayisiis si loogu yimaado. arrintaasi waa arrin xaaraan ah oo aan banaanayn. rasuulku wuxuu alayhi salaatu wasalaam al-mar'atu awra, war gabadhu waa awro madax ilaa mijo. dumarkan kamarada laga duubayo iyo gabdhahan kamarada laga duubayo hal la joojiyo. ummadda muslimiinta ee Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrintaas waa inaad iska ilaalisaan. nin meel wax ku cilaajinayo kamarad weyn haysta oo intuu halka ka duuba ku fadaxadeeya kadibna baraha bulshada ku soo dhiga ha u tagin, hana ka ag fogaan, hana ugu nasteexeen gabadh walaashay oo muslimada in ay tagto amba ay u tagto. ummadda ha looga digo dadka noocaas. war qofkii ay ilaahay darti ka tahay ee ummadda waxa weeye wax ku anfacaya ee ummadda daweynaya qof lagu tiro ilaahay ba waxa weeyaan quraankiisa iyo ducadiisu ba ay dhacayso oo ilaahay uu aqbalayo. war qofkii yiri waxbaan daweynaya ee goob cilaaj furtay sida shariicada saxda wax u daweeyo, laakiin kamarad baan soo qaadaya deetana miskiinta ayay xanuunsatay jinku gala amba sixir loo dhigay halkiintana asturo aan ka daweyn lahaa ayaan kamarad ku wada xidhaya meesha dabeetana waan fadaxadeynaya caalamka oo dhan baan leeyahay eega inantaas sixir baa loo dhigay. arrintaasi waa arrin aad u liidata, waana dhaqan xun aanu ma sheegi karno mana garanayo runtii arrintaas halkay naga soo gashay iyo waxa weeyaan cidda laga soo qaatay. dabcan marka waxa weeyaan baraha bulshada dib loogu noqdo dad fara badan ba waxyaabaha aan sameeyo islaam ba aan ahayn oo isku day doona haddii ilaahay waqtigiisa inaan idiin soo gudbiyo. laakiin xaqiiqdu waxay tahay walaalayaal dhaqanka noocaas ee aadka u liitay inaan iska ilaalino. war gabadhan yar inta yar lagu keenay inaad daweyso xanuunka waxa weey sixirka aad ka furto oo quraan aad ku akhrido in sixir lagu furo quraan aad ku akhrido oo cilaaj aad saarto in aad tirada kamarad baan ka duubaya qofka waad ceebaysay ceebihiisina maad asturin. xadiiska waxa rasuulka way ka hor imanaysaa qof muslima astura ceebihiisa ilaahay ba asturay waxa weeyaan maalinta aakhiro isagana. laakiin markaad kamarad soo qaadato ee aad ka duubto
arrintaas waxa weeye arrin aad u liidato weeye gabadhan berri waxa weeyaan aad kamarada soo dhigtay baraha bulshada soo gelisay cidda waxa weeyaan xataa guur ku soo haweysanaysa waayo way dhici kartaa arrintaas waa arrin fadaaxada oo aad u liidato oo aad u xun weeye walidaalika waajibku wuxuu yahay walaalayaal intaynu ka fogaan karno arrimo inaynu ka fogaano dadka waxyaabaha noocaasa sameynaya jahli baa u geenaya dabcan jahli baa u geenaya maantana baraha bulshadu wuxuu noqday shay yacni rakhiisa oo qof kastaaba ganacsiga uu doonayo inuu waxa weeyaan ku fusho inuu ku samaysto wax alla wuxuu doono waxaan leenahay niman yahow waxa weeyaan dumar hablaheena iyo dumarkeena iyo gabdhaheenaas dee ma aha waxaad ganacsigaaga ku socodsiinayso waa dumar asturan xijaaban dumarka Soomaaliyeed akhlaaq iyo dhaqan iyo diin leh ha ka dhigin shay rakhiis oo jaban oo waxa weeye aad ku socodsiiso cilaajkaaga oo aad uga dhigto iclaan iyo ogeysiis waxaan leeyahay oo runtii u soo jeedinaya ummadda Soomaaliyeed war meel kasto aad joogtaan inaad waxa weeye aad ka fogaataan arrinta noocaas dadka qaar bad markaad comment-ka akhrido cid ay ka bixinayaan saas oo kale intuu kamarada uga duubay biyo la dhacayo ayaa laga yaabaa ma sha Allah xageed joogtay meel heblan ugu kala inay hayaan wanaag bad moodaysa waxan baraha bulshada lagu soo gelin adoo waxa weeyaan ooyo balanbaraya hayo laga dhaxadlayo teeda kale xataa waxa dhici karta far badan inay sirahooga ay sheegaan oo waxay doonaan waxa weeyaan ay sheegaan halkaas oo maxaad u gashay waan jeclaa iyo saasan u raacay waxaas ay ugu sameysay fadeexad weyn waxa soo kale waa fadeexad weyn adoon aakhiraba taginba ayaa dunyada lagu fadeexadeynaya waxaan leeyahay aan u soo jeedinayaa war cid kasta oo aad garanaysana ficilada noocaas ee aadka u liita sameynaya war ummadda uga diga xataa waxaan aaminsan in dawladaha waxa weeyaan loo kaashado waxyaabo dadka noocaas si inta loo edbiyo kamaradaha looga jajabiyo laana arrintaas mafsado far badan bay keenaysaa waxa laga yaabaa in ninkeedii maqan yahay zawjkeedii amba weligeedii uu maqan yahay deetana arrintaas markay dhacdo ay baraha bulshada soo gali in loo waxa lagu soo shargareeyo fiidiyoogii arrintaasina moral jab iyo ay ku keento xataa in lagu furo dhici karto gabadhii arrimaha noocaas waa arrimo aan fiicnayn dhaqan ahaan haddayna Soomaalinahay dhaqan ahaan meena lahaan jirin waxyaabahaas kun cilaaj baa furnaa weligoodba wadanada waxa weeyaan way ka furnaayeen waxaan leeyahay niman yahow arrinta noocaas la iska ilaaliyo hana laga fogaado dadka sameynayna ha laga digo yaani cidna u tagin haddii kale hal ila kamarada joojiya aad wadaan video waxaan daawanaynin aan isri yani markaan فيسكيسان أجي يوتشيس وقف دين له وحوي أنا أهل دينه مع ذلك هذا أنا قبل يسون كانوا هرفا دي كمرد دينه وحوي هالك كقصلية وقبل يسوي وحوي بيال ورشينيو اللقينيو وهالك كوي يسكم وحوي يعني وحاسوك العبوي وحاسوك العبوي وحاسوك العبوي وحلا أركي كر الله مقلي كرم معهن إلهي سبحانه وتعالى لقى بقى هنا الحشوده